waxay dowladda Soomaaliya ay hadda ay aqoonsatay maamulka waqooyi bari waqooyi barina wuxuu dhacaa maamul ahaan inta u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland marka arrintaas maxay kula tahay adiga maamulkaasi sameyntiisii maxal nabadeedu gobolkaasi ku soo dabaalaya simple way ani waxaan kula talaa dowladnimada loo heelay wax walba oo dowladnimada Soomaaliya dhisaaya hagaajinaya ani waan garab taaganahay wax walba oo dagaal keenayana of course waxaan jeclaan lahaa in laga fiirsado laakiin dowladnimada Soomaaliya iyo nidaamka Soomaaliya dowladnimada ku hagays oo madaxda Soomaaliyeed heshiis ku yihiin aniga saasaan yaa mar walba aan taageeraya boorame buuga xeerka ciise ayaa rabay in laga seelac looga dabaaldego dowladda Soomaaliland markii hore way diiday markii dambe way ogolaatay in laga dabaaldego barnaamijii ugu weynaa ka dhacay boorame magaalada dhan way gubanaysaa Soomaaliland say u handle garaysa buugaas ay aragtaa wallahi waxaan jeclaan lahaa wax walba oo Soomaali gudaheeda inay heshiis ka gaaraan oo ka midoobaan oo ka heshiiyaan ka xumahay meel walba oo Soomaali ah inay dagaal ka dhaco dadku dhintaan waxaan jecelnahay ma inaan aragna ma rabna waxaan kula talin lahaa madaxda wadanka meel walba ha joogaan inay midnimo iyo dibadhisiin ay horumariyaan waxa waa shir doorasho si cad oo ay xulufo iyo rag iyo dumar ba isugu jiro oo masiixiyiin ah oo abaabulan inay waraaq u qoreen ay qoreen ay soo gudbiyeen ay kibligat u gudbiyeen Soomaaliya marka waxaan nahay dad Soomaali oo Kristaan ah dadkan kuraasta qaybsanaya waa wada muslimiin waxba nooma ogola bal idinku wax noo farsameeya Soomaaliya madaxweynayaal badan la shaqeysay madaxweynayaasha la shaqeysay kee ugu fiicnaa marka uu u fiicnaa ma uu fiicnaa ba Soomaaliya u fiicnaa adii ku fiicnaa iyo kii Soomaaliya u fiicnaa labadaba kulliga waxa dad badan saaxiibo noqoteen barnaamijka qabanaysay maalintii dhaweeto Soomaaliya madaxdeedii tiro badan ku timaaday LIS-kaaga waa la arkaya saaxiibka Fahad Yaasin saaxiibo rasmi ah ma noqoteen because buuga si fiican uu kuga xayeysiiyay waa maxashiiska xiriirkii ka dhaxay adiga Fahad Yaasin noloshiisa kala bar wax ka badan oo cimrigiisa ah wuxuu geliyay arrinta Soomaalida qadiyada Soomaalida maruu ergey u noqdo maruu safiir u noqdo iyo maruu shirarkeeda dib u heshiisiinta oo hormood uu ka noqdo buugana ka qoray endorsement ka qoray asaga kelima ahayn waxa qoray prime minister ka Soomaaliya uu akhriyay hadaad fiiriso buugga pageskiisa hore waxa qoray prime minister ka Soomaaliya oo arrintaasi uu buugga wax ka sheegay waxa qoray Sheekh Shariif naftigiisa Fahad kelima ahayn waxa qoray Xuseen Xalana waxa qoray oo buug wax ka qoray madaxweynaha Puntland Saciid Deni marka Hamza iyo Madoobe kee taageersan ha dagaalkii lagu soo qaaday mataqaana Jubaland see u aragtaa ka dhacay Jubaland dagaalkii Jubaland ka dhacay see u aragtaa doorasho xor iyo xalaal Soomaaliya ma ka dhacaysaa ilaahay u baryana inay ka dhacdo waan jecelnahay inay doorasho dhacdo oo xor iyo xalaal ah waan rabnaa maxay le taas nabadgelyada horseedaysaa dib miyaa loo dhigay horta may looma dhigin marka ma ka hor dhacaynaa adigu waa yahay Somaliland ma taqaanaa inay gooni isku taag noqoto ma taageersan tahay ma noqonaysaa dowlad Somaliland waxaan rabaa aniga xalka Somaliland horaan aaban wax ka sheegayba waxa ka hadashay marka madaxdii meesha joogtay sidii wax u socdeen laakiin laba qof ayaa highlight garaysay laba madaxweyne ama madaxweyne iyo prime minister aan isjeclayn dhaxdiisa lagu fariisiyay ma horta kursiga aan ku fariistay waa kursiga madaxweynaha Kenya meesha صح يعني saf madaxweynaha leh ahaa madaxweynaha Kenya la sugay waa markii ugu horeysay madas la kulanteen Soomaaliya labadoodaba la kul markii ugu horeysay arkay waay ma garanaynin lama kulmin horaan isagan ma garanaya laakiin anigu si protocolka isoo wadanay kursigayda fariisiyeen okay waxaa lagu sheegaa inaad tahay nin on left ah buugaagana waxaa ku qortay qaaraan in laga soo doonto lagu yimaado adiga on left ma tahay maya waxaan aaminsanay qadiyada u taagayna aaminsanay qadiyad sax tahay on left waxaan ku qoray xiriirka ugu hore oo la lahaa
وحرير مر اللي هو إمالي إن قاران بحيه قاران كان بحيه مرك أنا تاجر سنة إن كميت أهي إن حبين كأهي أنت وأنا كجواب يسأل لكن قاران كي قبلها يستلم بحيه وايا من قاران جدا halka su'aal soo follow up su'aal laakiin ONLF marka urur argagixisa ayuu Ethiopia ka qornaa marka qaaranka bixinaysa marka Ethiopia inaad argagixiso taageeraysaan marka Kenya madaxdeeda idugumay qabsan maya hada Ethiopia aniga Ethiopian mihi waxay naga aaminsan tahay I don't care very much laakiin deegaankaas inuu deegaan Soomaaliyeed yahay dhibaatana ka jirta yaan ogeyn ururka asaga ahna maana aaminsanan weligaan inuu argagixiso u yahay hadda geeska Afrika ma deganaan doontaa iyadoo aan la heshiiskeedii nabadda uunan la tixgelin markii aad samaynayseen galmudiga samayseen waxaad samayseen qalato Jubaland labadaas maxay ku kala duwanaayeen maxaase laga bartay SSC Khaatumo ama hadeerto waqooyi bariga cusub conflictigan geeska Afrika experience-ga igad say u aragtaa marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan buugana dadku wax badan ay ka baran doonaan kuwa siyaasadeedna aad dirtay